wajiga xasan baso wado xiri wajiga Dr. Xasan Maxamed Aadan Fuuje oo u lolamayo xilka barsaabnimo ismaamulka Wajeer ahna musharaxa beesha fay ay soo xusheen inuu ku matalo doorashada soo socoto ayaa socdaal siyaasadeed ka soo bilaabay magaalada Gaarisa. Dr. Xasan Fuuje iyo ku-xigeenkiisa Cabdi Maxamed Salal ayaa magaalada Gaarisa kula kulmay codbixiyayaasha ka soo jeedo ismaamulka Wajeer. Waxay ka codsadeen in la soo doorto maadaama Wajeer ay u baahan tahay shakhsiyaal ka bedeli karo xaaladda ay maanta ku jirto. Dr. Xasan Fuuje waa digtoorka daaweeyo cudurrada habeenka wuxuuna carabka dul mariyay inuu maanta u baahnaan lacag looga talagalay dadka danyarta balse doonayo inuu keeno isbedel gaar ahaan xagga caafimaadka. waxay sidoo kale cagta soo mariyeen tuulada Aqal Aar, Abaqoorey iyo Dhilmaanyaaley. musharaxiintan ku taagan xisbiga Jubilee ayaa u ballan qaadeen dhammaan shacabka ay la kulmeen in horumar ballaaran oo cadaalad ku dheehan tahay keeni doonaan. qofka markuu soo galaa shakhsi fikradiisa way kala dadku way kala duwan yihiin. dad waxyaalo shakhsiya soo galaan dad aniga qalataana baahida kusoo gaarayso oo bulshada ka imaadayso ayaa kusoo gelina. xafiiskayga gurigayga ayay ugu imaadaysaa baahida reer Wajeer ku taalo Wajeer. waxaa ku saabsanaanta dhaqaalaha, cilmiga ku saabsanaato, caafimaadka ku saabsanaato, amniga ku saabsanaato, mustaqbalka dadweynaha ku saabsanaato. waxaan ahay dhakhtar 40 sano 1986 aan dhakhtar noqday. kolba dadkii aan dhaliyay waa ilmay qabaan. aniga hadda waxaan la hadli rabaa haweenkeena aan la hadli rabaa. haweenkeena waa mustaqbalka dadkeena weeyaan. wax kasta oo dadkeena iyo diinteena iyo dalkeena ku saabsan saldhigoodu waxaa weeyaan haweenkeenana axdi ay leeyihiin. ragga haddii axdi kaa qaadaan waa inay fuliyaan, waa inaad sugtid horta. laakiin haweenka markay axdi kaa qaadaan axdigaas wuu fulayaa sida runti ah. marka haweenka daan bahay dhakhtar haweeneed, haweenka ay dhegaystaan. dhaxalka ilmaheena Wajeer 30 40 50 sano hadda ka dambeyso sees noqon doona haddii hantida dadweynaha oo Wajeer soo gelayso sanad kasta sida hadda u socoto ay dhunto oo Nairobi ku noolaato. hantida nafteeda Wajeer ay ka imaadaysaa, Nairobi ay tegaysay ku noolaanayso. haddii aad wax xadayso matalan waxaa fiican inaad ku isticmaasho meeshaad ka xaday. laakiin haddii meesha hantidii ay ka baxayso meeshii laga rabay, cayrnimo ay keenaysaa, cayrnimo weyn ay keenaysaa. 1963 markii Kenya xornimo qaadatay ilaa iyo 2013 Wajeer sanad kasta waxaa la siin jiray 200 milyan oo development ah. waxaana control jiray county commissioner county DC asahay. markaas macnaheedu waxaa weeyaan 63 ilaa 2013 waxaan helnay 5 billion shillings approximate qiyaas 5 billion shillings aan helnay. ugu badan lacagtaas waxay geli jirtay amniga ay geli jirtay, security ay geli jirtay. marka dadkeena kama faa'iidaysanaynin, looma danaynaynin dadkaasayta oo madaxda countigeena.
قبل 2013 devolution markii imaaday ilaa iyo waqtigan wajeer waxaa loo qoonday ay heshay qiyaas 120 bilyan ah kontonkii sano soo dhaafin macaan helnay 5 bilyan tobankii sano soo dhaafin macaan helnay 120 bilyan 120 kaas bilyan maqaalkii wixii laga qabtay wuu yar yahay zaid اللي بيجانو ودعسان يعني عافمات كان ميل مرني ترك الجيت كل من وجار ولا صوت نيروبي وحيال بدن مجال هلاوس مستقبل كان كستو لبوين أكاد مركو إنا كفكر له هدي أن ربنا إنا دحالك المهنة عن حوالي وإذا كفكرنا محتويه حق عادل ومن المرين ليس باهر التدوينة أنا كفكرنا وياه ما هن قبيلة إيه قبيليس ما يا توج هن يا وحياة الشخصية وط يا كونتراكت سوري حياة يا أمانة أو لوجي هاي هنا طبقا مسلمة وحيلا سؤال لقى فكرة ما هن نكان وإيدي كوا قوسكي كوا ساس إلا لقى فكرة خلق وياه أربع عرب الرجال هنا تاس كفكرتان أنا حسن رمتي هذه كوسكري Soomaalida iyo dadweynaha ku nool wajeer kala midaynayo qofkii xaq igu leh xaqiisa meel marina insha Allah marka waxaan rabaa inaad doorataan inaad walaalkay abdi iyo aniga inaad doorataan maxay nimankan kale oo nala tartama سياسي هاي كوا فرتنا سنة سياسي هاي مت سديت بلاد قبنا هاي لكن مقال كوضو على قرنايا وحي سوبين كرانو على قرنايا أنا قنوع تجارية أنا جيت عد أو مرينايا مل مرينايا دنتين باهلين يو howlaha ka danqanaysaan oona ka fikiraya inaan dhisno mustaqbal u dhisno dhaxalkii ilmihii dhaleen intaas waa laazim kenya way naga tagtay kenya haddii aad heshay 10 bilyan sanad kasta ku danayn mayso وحي كوكون دي سواد هالشيء قف كاتن قنا ملا فإن هذيك مركب إسحاويسن هذيك أنا كوي حرنتا نيك السياسة كوي محل هذيك ما أنت هذيك نيك سياسي وتوجا أد دورتي هذيك ويان ديك نيك ما هذيك ويان مركب ولا له تاس حال أوجاد هذيك وصوب بحكي وحنا ربنا دورتان ولا الكي هذيك وإسكاشرنا ماجد عد أو ترتيب حقه أو ضدك كذا غنيس أو ضدك كذا غنيس أو الدين كذا غنيس عندي سيدنا وبلا يتوفيق. إن قاركين كلمة إلى حبسوين إلى ميري أنت أكسر دويسين مشرع دكتور حسن محمد آدم وكم مقعدر فوجة إن أكسر دويسين شرف بيئات يا أبي وطهي أبان إنه فرحي دكتوري برنامج كينا وحكو جرا إن عن ميغا دام سمين بنانكا الأركيسي شبوين باميشا مرا أو كتال يبيا هذا تركتا وما باحنا وإسكا بنان وحكا شغيستولاي
شغال نوتالا إن شاء الله إن شاء الله dadkan waad aragtaa waa kuwii helan yihiin waxaa muuqataa daliil fiican baa muuqdaa rajo fiican baa muuqataa annagana waxaan idin ballan qaadaynaa insha allahu biidnillaahi alkariim kursigaa haddii la soo galo magaaladan inay noqon doonto number 1 shaqada in laga bilaabi doono jidad bay u baahan tahay waa strategic meel ay ku taallaa Wajeer iyo muxuu ahaa Garissa counties ayay tahay xuduudkeedii waa aragtaa marka hadda abaara ba'an baa ku dhacay xoolihii baa ma aragtay laga raray waa laga guuray in badan laakiin waxay u baahan tahay shaqo waxay u baahan tahay sidii duqeyda ay sheegeen in shaqo laga qaban doono insha Allah waana ballan qaadaynaa insha Allah inaan shaqo ka qaban doono